ma ogtahay inay jiraan shirkado waaweyn oo wadamada reer galbeedka laga leeyahay gaar ahaan Mareykanka kuwaas oo ka macaasha dagaalada dunida daafaheeda ka dhaca yacni xabadii qori afkiisa ka dhacda ama qofkii dhinta yacni shirkadahaas lacag ayay ka sameeyaan marka in uu dagaal ka socdo meel Afrika ka mid ah meel Aasiya ka mid ah meel Latin America ka mid ah iyo meel dunida ka mid ah mar walbo dagaal ka socdo ama ay dad isdagaalayaan ama ay dawlado isdagaalayaan shirkadahani lacag ayay ka sameeyaan waxaan kula wadaagayaa saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee dawladaha reer galbeedku ay leeyihiin gaar ahaan Mareykanka kuwaasoo hubka lacagta ka sameeya dawlado badan ayay burburiyeen ururo badan oo dunida daafaheeda ka dagaalama ayay si toos ah iyo si dadbanba u maalgeliyaan waxa laga yaabaa in isweydiinaysid adiga war adduunyadan muxuu dagaalku uga dhamaan lahayd tusaale ahaan dagaalkii Ruushka iyo Ukraine markuu sii qaboobi rabay muxuu Suudaan dagaal uga bilowday haddana muxuu Kongo dagaal uga bilowday haddana Gaza haddana yacni waxa way dunidan yaa dagaalka ka macaasha dhiiga daadanaya iyo xabadii qori afkiisa ka dhacda yaa lacag ka sameeya xogtaas ayaan rabaa inaan maanta kula wadaago ku soo dhawow muuqaalkan shirkadaha difaaca ee waaweyn ee Mareykanka waxay noqdeen awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo aan la iska indha tiri karin waxay si toos uga faa'iideystaan dagaalada waxayna saameyn ballaaran ku leeyihiin siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladaha reer galbeedka gaar ahaan dawladda Mareykanka iyagoo adeegsanaya maalgelinta siyaasiyiinta qaybtood iyo maalgelinta doorashooyinka qaybtood iyo xiriiro dhow oo ay la leeyihiin militariga waxay marar badan hagaan siyaasadda si ay u ilaashadaan danahooda dhaqaale tusaale ahaan shirkadda loo yaqaano Lockheed Martin oo ah shirkadda ugu weyn adduunka ee hubka sameysa waxay heshay qandaraasyo ka badan 429 bilyan oo ay la gashay wasaaradda difaaca Mareykanka intii u dhaxaysay 2008 iyo 2021 waxay soo saartaa shirkaddan diyaaradaha dagaalka F-16 iyo F-15 iyo gantaalada Hellfire-ka loo yaqaano iyo nidaamyada difaaca cirka hubkan ayaa si joogto ah loogu adeegsadaa dagaalo ay ka dhasheen eedeymo ka dhan ah xuquuqda aadanaha sidoo kale shirkadda hubka ee loo yaqaan Northrop Grumman waxay iyaduna si gaar ah ugu takhasustay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska loo yaqaano nidaamyada difaaca cirka iyo tiknoolajiyadda sirdoonka waxay si dhow la shaqeysaa militariga Mareykanka iyo xulufadiisa waxayna saameyn weyn ku leedahay siyaasadda difaaca Mareykanka waxay adeegsataa lacag badan ku bixisaa siyaasiyiinta iyada danaheeda matala waxayna xiriiro la leedahay saraakiishii horay uga fariistay ciidamada militariga Mareykanka sidoo kale shirkadda General Dynamics waxay caan ku tahay iyaduna soo saarista taangiyada dagaalka diyaaradaha Gulfstream-ka loo yaqaano iyo qalabka sirdoonka waxay sidoo kale bixisaa adeegyo tiknoolajiyadeed oo ay u qabato hay'adda socdaalka Mareykanka sida nidaamka loo yaqaano IDENT oo lagu kaydiyo xogta biometrikada malaayiin muhaajiriin oo Mareykanka ku nool shirkadahani waxay si toos uga faa'iideystaan dagaalada tusaale ahaan Lockheed Martin ayaa si weyn uga macaashtay dagaalka Gaza iyadoo bixisay diyaaradaha F-35 iyo gantaalada Hellfire-ka loo yaqaano kuwaas oo lagu weeraray xarumo caafimaad iskuulo iyo guryo dad rayid ay leeyihiin waxaa jira cadeymo ah in gantaalo ay shirkaddan sameysay lagu dilay suxufiyiin caruur iyo dad aan waxba galabsan oo masaakiin ah shirkadda loo yaqaan Northrop Grumman waxay bixisay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsaday weerarada Yemen Afghanistan iyo Soomaaliya laga geysto droniska ay sameyso ayaa lagu eedeeyay in lagu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan taasoo dhalisay marar badan cambaareyn caalami ah shirkadda General Dynamics waxay hub siisay Israa'iil oo ay ku jiraan hubkaas taangiyada Merkava loo yaqaano iyo bambooyinka MK-84 taangiyadan ayaa si joogto ah loogu adeegsadaa weerarada Gaza halka bambooyinka MK-84 lagu eedeeyay in lagu dilay boqolaal rayid ah oo ay ku jiraan caruur iyo dumar aan waxba galabsan shirkadahani waxay si weyn saameyn ugu leeyihiin siyaasadda Mareykanka tusaale ahaan Lockheed Martin oo kale waxay bixisay in ka badan 305 milyan oo ah laaluush siyaasadeed intii u dhaxaysay 98 iyo 2022 si danaheeda loo ilaaliyo waxay sidoo kale bixisay 35 milyan oo ah maalgelin doorashooyin taasoo ka dhigaysa mid si toos ah saameyn ugu leh sharci dejinta Mareykanka Northrop Grumman waxay leedahay iyada Political Action Committee wax loo yaqaan oo ay ku maalgeliso siyaasiyiinta taageera miisaaniyadda difaaca waxay si gaar ah u taageertaa xubnaha guddiga difaaca ee Koongareeska taasoo u sahlaysa inay hesho qandaraasyo joogto ah oo aan hufnayn shirkadda General Dynamics waxay si dadban saameyn ugu leedahay siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka iyadoo bixisa adeegyo sirdoon iyo kuwa tiknoolajiyadeed oo ay adeegsadaan hay'adaha socdaalka iyo kuwa militariga waxay sidoo kale xiriir la leedahay xubno siyaasiyiin ah oo xilal xasaasi ah taasoo u sahlaysa inay hesho marar badan qandaraasyo aan tartan hufan loo gelin waxaa jira tusaalooyin cadcad oo muujinaya in shirkadahani ay si dadban uga qayb qaataan burburinta wadamo badan dagaalka
Ciraaq ee 2003 dhacay shirkadda Lockheed Martin iyo General Dynamics iyo Raytheon shirkadda loo yaqaano ayaa helay qandaraasyo malaayiin dollar ah si ay u bixiyaan hub adeegyo iyo dib u dhis ciidan. Dagaalkaas waxaa lagu dilay 100,000 oo rayid ah waxaana lagu burburiyay kaabayaasha dhaqaalaha dalkaas. sidoo kale tusaale kale haddii aan soo qaadano waxa uu noqonayaa waddanka Yemen shirkadahaas ayaa hubsiyay xulufadii Sacuudiga oo ay ku jiraan diyaaradaha dagaalka gantaalada iyo nidaamyada hagidda. weeraradan ayaa lagu dilay kumanaan rayid ah waxaana lagu burburiyay isbitaallo suuqyo iyo iskuulo. Afghanistan iyo Soomaaliya droniska ay sameeyso shirkadda loo yaqaan Northrop Grumman ayaa loo adeegsaday weeraro lagu dilay dad rayid ah. warbixino badan ayaa muujinaya in weeraradaas aysan lahayn bartilmaameed sax ah taasoo keentay khasaaro naf iyo maalba leh. haddii aan u nimaano Israa'iil saddexdan shirkadoodba waxay si toos ah u siiyaan hub diyaarado iyo nidaamyo tiknoolajiyadeed. hubkaas ayaa loo adeegsaday weeraro lagu dilay kumanaan Falastiiniyiin ah waxaana jira eedeymo ah in ay ka qayb qaateen shirkadahan dambiyo dagaal oo toos ah. shirkadahani waxay sidoo kale saameyn ku leeyihiin warbaahinta iyo aragtida dadweynaha iyagoo maalgeliya xayeysiimo daraasado iyo warbixino. waxay leexiyaan doodaha siyaasadeed si ay u taageeraan dagaallo cusub. tani waxay ka dhigaysaa in dagaaladu noqdaan ganacsi joogto ah yacni xabad qori afkiisa ka dhacda shirkadahani lacag ayay ka sameynayaan. haddii ay hubkaas iyagu sameeyeen waxaa jira xiriiro toos ah oo u dhexeeya kororka saamiyada shirkadaha difaaca iyo bilowga dagaallo cusub. tusaale ahaan kadib weerarka Israa'iil ee bishii Abriil 2024 iyo Iiraan saamiyada Lockheed Martin ayaa kor u kacay iyadoo maalgashadayaashu u arkeen fursad faa'iido leh. shirkadahani waxay sidoo kale bixiyaan tiknoolajiyad sirdoon oo lagu ilaaliyo xuduudaha sida nidaamyada lagu kormeero soo galootiga xadka Mareykanka iyo Mexico. tani waxay keentay cambaareyn ah in tiknoolajiyad military loo adeegsado dad rayid ah oo muhaajiriin ah oo nolol raadinaya. waa sax dowladda Mareykanku xaq ayay u leedahay xuduudaheeda inay xirato laakiin qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda waxay leeyihiin qalab loogu talagalay military iyo dagaal sidee shacab loogu adeegsadaa. waayahay gabagabadii iyo gunaanadkii shirkadaha Lockheed Martin, Northrop Grumman iyo General Dynamics ma ahan oo kaliya shirkado sameeya hubka balse waa awood siyaasadeed oo saameyn ku leh dagaalada sharci dejinta iyo siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka. iyagoo adeegsada lacago xiriiro siyaasadeed iyo warbaahintaba waxay huriyaan dagaallo si ay u ilaashadaan danahooda dhaqaale xitaa haddii wadamo lagu burburinayo ama dad rayid ah lagu xasuuqayo. yacni marar badan baa laga yaabaa inay isweydiisay war adduunyadan muxuu dagaalku uga dhammaan layahay. laakiin waxaan rajeynayaa muuqaalkan in aad ku fahantay in ay jiraan dad ka macaasha dagaalada dunida daafaheeda ka dhaca. yacni dadkaasi mar walba waxay rabaan meel dunida ka mid ah ama 2 ama 3 meeloodba in dagaallo waaweyn ka socdaan si ay dadkaas hub uga iibiyaan si toos ah ama si dadban ama xitaa waxay marar qaar taageeraan ururo aad la yaabisay oo isdhahaysid war ururadan maxay dowladahan waaweyn ula dagaalamayaan oo loo jebin laaya. marka intaas ina fahantay baan rajeynaya.